mas-uuliyiinta culimada degmada Gardag ayaa deeq raashin oo ay soo gaarsiiyeen gudida heer qaran ee COVID-19 isla markaana ay ku deeqeen ganacsatada Somaliland looguna talagalay dadka ay saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan COVID-19 waxay mas-uuliyiinta iyo culimada degmada Gardag ay deeqdan raashinka u qaybiyeen dadkii loogu talagalay goobtii lagu qaybinayay deeqdan raashinka ay hadallo kooban ka soo jeediyeen maayirka degmada Gardag xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah culimada degmada Gardag ayaa hadaladoodii waxa sida tan ganacsatada ahaa ee reer Somaliland ee bixiyay raashinkan ee dadka walaalahooda ee xanuunkan saameeyay u soo bixiyay waxaanu leenahay ilaahay halka ka soo saarteen wax ka qayr badan haydin ku bedelo waxa bixiseen iyo wixii la hadheen bay ilaahay haydin barakeeyo sida ay maamulka degmadu sheegeen annagana waxay naga codsadeen inaanu la qaybino annaguna waa ka aqbalnay waana la qaybin doonaa insha Allah dadkii loogu talagalay wuxuu gaari doonaa sidii ugu haboonayd ba insha Allah waanu ku rajaynaynaa inaynu gaarsiino waxaan soo gaaray raashinka maayirku sheegay ee loogu talagalay dadkii COVID-19 ku saameeyay insha Allah taala waxaan u qorsheyn doonaa sidii ugu haboonayd ee uu gaari lahaa dadkii ugu mudnaa cidii soo bixisay xalanahay galay dadka jilicsan dhamaana insha Allah taala cidii soo bixisay ilaahay subhanahu wa taala waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro insha Allah taala wax walba ay ku doonayeen oo khayrana ilaahay subhanahu wa taala ugu bedelo qofku hadduu khayr bixiyo oo dadka waxa anfaca masaakiinta isagana ilaahay subhanahu wa taala bedel khayr qabusiya يجينا وحنا رجعنا إن شاء الله تعالى إلى هاي إنه ماشي كسر صارين وحكى خير بدن إن شاء الله تعالى إلى هاي وقبدله عدي لوجو تلقى إن شاء الله تعالى سيدنا الخسان ما أنت هالكن وحنا كوقا يبينا راشين بيشة الضباط لابد يكون يلا واتنكا راشين كاسو قريب كا تاجري دلوجو تاجريو تدك أي سامين تكوي راتي دباتوين كذا شيء مقرن xanuunkan COVID-19 marka raashinkaas oo la gaarsiin doono bulshada qaybadeeda kala duwan sida ay kala jilicsan yihiin ayaan maanta qaybinaynaa cidii soo bixisay waxaan ka leenahay jasaakumullahu khayra waqti ku haboon buu yimi waxaan rajayn doonaa insha Allah taala in si fiican loo qaybin doono dadkii ma garanaysaa ku haboonaana uu gaari doono waa madarsare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland Gardag